السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalay qaaliga oo qiimaha badan leh ani waayo walaashiina kaltuuma cooking waani salaami meel kasta adduunka aad ka joogtaan kusoo dhawaada janalkayga gacmo furan kusoo dhawaada maanta waxaan nii wadaa rooti abu farmaajo kaaliska arag oo aad u macaan badan casho quraac wax walba kuu naqanayo boorna ma kaaga baahno birtaabadan ku sameynaynaa haddana waxaa rabaa hoosheedii gudahan oo sii galo waxaa u baahanaa liibad hal qaando oo aad u buuxin waxaa u baahanaa hal qaando iyo bar oo saliid ah intan waxaa ku haystaa jiis waaye masareelo waaye 250 garaam waaye intan waxaa igu jir dhaladii cusbo 3 xabo ukun waxaa rabaa biyo inaan kusoo kariyo intan waxaa ku haystaa sokor waaye sokorta waxaa u baahanaa 2 qaando inta waxaan ku haystaa caano waaye caanahayga 200 ml waaye caanahana full fat waaye waxaa rabaa 350 garaam oo bur ah waxaa soo qaatay weelkaygii aan ku qasa lahaay haddaad sokor jeceshahay 3 qaando ku darso ana laakiin 2 qaando igu filan sokor meel dheerna waaye qaandadana waa tiirista ma ahan tan cuntada lagu cunaay tan roonta waaye qaandadeedaas ogaada cusbadeena waa tana qaandada afkeedii hore le waaye kulligooda isku wada qasaa saliidda iyo caanaha iyo liibatada waxaan ku bilaabay koobkii koowaad oo burka ah 250 garaam waaye caagayga waxaan ku har wax yar oo bur ah burkan waxa uu isticmaalaa miiska iyo markaan diyaarinayo waxay isku yihiin 350 garaam oo bur ah waxaan ku shubay wax yar saliid caagayga hadhooti markuu qamiiro sidoo igu noqdo rooti oo markaan soo qaaday caaga oo kula dhigin daboolkiisaan saaraa waxa ka maqnaaha 1 saac
waayo kana haddaan soo laabtay waa kaas gacantaada leebsas ku yeelaysaa. ukunteedu waa kan 3 xabo. waxaa rabaa si yar yarna u gooyo. haddaa ukunta rabin ama jiista aad jecleen waxyaalo kale ku bedelanaysaa. adiga sidaa doontid afka ugu xiro. ani laakiin sidaanaan jeclahay oo biiga biigadana u sameeyo. dabkay wuu ii shidan yahay 2 nambar oo ii joogaa. markay dab kastoo soo kulaado aan rabaa inaan ka dhigo 1 nambaraa kusoo dubaa. rootiga dubistiisa waxay nagu qaadanaysaa 15 daqiiqo. marka ugu horeysa 10 daqiiqaan ku dubeynaa, marka ugu dambeysana 5 daqiiqo.
walaalahayga qaaliga fiidiyowga intaasuu ku eg yahay daawashada fiidiyowga ku mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.